waan daawadeel halkani waa xog faafiye waxaad ku soo dhawaataan wararka aan idin hayno qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ah cudur aan la aqoonin oo ka dilaacay gobolka Shabeellaha Dhexe ee bartamaha Soomaaliya iyadoo tirada dhimashadana ay sii kordhayso xog ku saabsan ayaanu idin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa tirada dadka ku dhintay weerarkii iyo qaraxyadii ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo oo sii kordhaya iyadoo mas'uuliyiin iyo sidoo kale ururo caalami ahna ay cambaarayeen iyana waan idin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa hadii eeba uu ka raali noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo ka furay barnaamij ay dadweynaha kula xisaabtamayaan maamulkiisa sidoo kalena waxaan idin soo gudbin doonaa wafuud ka socota dawladda Qatar oo wata diyaarad military oo ka degay magaalada Dhuusamareeb iyagoo halka kulamo kula qaadanaya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idin haynaa mar kale u diyaar garooba la socoshada xog faafiye fadlan haddii aad ka cusub tahay subscribe saaro oo rakamo wararkeena si ay mar kasta iyo daqiiqad walba ay ku soo gaareen xogo ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda aynu ku bilowna dad la sheegay in uu ku dhacay cudur aan la aqoonin ayaa laga keenay gobolka Shabeellaha Dhexe deegaan lagu magacaabo Ganoole cudurkan ayaa bilowgii hore ku bilowday in uu ku dhacay hal qof kaasi oo maalintii uu ku dhacay galabkeedii u geeriyooday qof kale oo caawinayay ayuu cudurkii ka qaaday isna waxayna taas sababtay in habeenkii maalintii kadib uu isna u geeriyooday tirada dhimashada dadka oo isku faahfaahiyay waafaafii ayaa gaaray ilaa 8 qofood halka tira 13 qof ka badan uu soo ritay cudurkaasi dadka deegaanka ayaa marka dambe go'aansaday in ay dadka cudurada qaba loo soo cararo magaalada Muqdisho isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ayaa la dhigay iyadoo xaaladooda dadka lala tacaalayo cudurkan ayaa dadka qaarkood waxa ay ku sheegayaan in aysan aqoonin halka kuwa kalena ay aragtiyooyinka ay soo dhiibanayaan ay ku sheegayaan in uu yahay wax u eg caabuqa Ebola oo walaac badan laga muujinayay in uu soo gaaro Soomaaliya balse wasaaradda caafimaadka Soomaaliya wali si rasmiyan kama isaga hadlin xogtan ku saabsan dadkan uu soo ritay cudurkaani sargaal ka tirsan hay'adaha caafimaadka oo aanu la xiriirnay ayaa sheegay in dadka hadda xaaladooda la tacaalayo ay soo hagaagayso balse ay jiri karaan dad kale oo hor leh oo deegaanka waxyeeladu ay ka soo gaartay lama xaqiijadkan cudurkan meesha ay ka soo qaadeen iyo waxa ay sababsadeen Kismaayo hadii aynu ku laabanana daawadayaal waxa sii kordhaya tirada dadka dhimashada ee uu soo ku waxyeeloobay qaraxii iyo ismidaaminta ahaa iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Madiina X Cascasay ee bartamaha magaalada Kismaayo Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi iyada oo dadka dhintana ay ku jiraan kuwa saxufiyiin ah iyo kuwa kale oo mas'uuliyiin dawladeed kuwaas oo hoteelka deganaa weerarka ayaa galinkii dambe ee shalay ka dhacay hoteelka ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo iyada oo magaalada Kismaayona ay tahay magaalo si weyn amnigeeda loo ilaaliyo waxaana magaaladaasi mamnuuc ka ah waxa loo yaqaan dhashareerka ama naqaamka oo gabdhaha ay xirtaan ama haweenkaba iyo sidoo kale mooto bajaajta taasi oo hay'adaha ammaanku ay ku sheegeen in amni dare ay horseedi karto balse maamulka Jubbaland wali rasmiyan kagama uusan hadlin weerarkaas warbixinta kooban ayaa laga diyaariyay weerar ku bilowday qarax ismidaamin ah ayaa galankii dambe ee shalay lagu qaaday hoteelka Madiina X Cascasay ee ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo gaari walxaha qarxa laga soo bixiyay ayaa lagu dhuftay ilinkii hore ee hoteelka kadibna dablay hubeysan oo ku labisan dareyska ciidanka dawladda ayaa gudaha u galay dadka dhintay ayaa lagu sheegay 26 qof halka 56 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada ammaanka Jubbaland ay soo afjareen weerarkaasi dadka dhintay waxa kamid ahaa Hodan Naaleey oo ah gabar saxafiyad ah haysatana dhalashada dalka Canada oo dhawaan ka soo laabatay dalkaasi kuna geeriyootay magaalada Kismaayo sida ay sheegteen dhacdadaasi mas'uuliyadeeda xarakada Al-Shabaab wararka ayaa intaas ku daraya in iyada saygeeda oo lagu magacaabayo Fariid Jaamac kaasi oo wasiir soo noqday oo kamid ahaa dadka ku dhintay mashaqadaasi marxuumadda ayaa ahayd aasaasaha muuqaal baahiyaha Integration TV kaasi oo ka warama arrimaha maxalliga ah ee dalka iyo qurba joogta Soomaalida Hodan ayaa ku dhalatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 1976 waxaana la dhashay 4 wiil iyo 7 gabdhood sida ehelada ay sheegeen Hodan Naaleey iyo qoyskeeda waxa ay Canada galeen 1984 iyaga oo saldhigtay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxa ay ahayd qof ku firfircoon baraha bulshada waxayna ku leeyahay dad badan oo ku xiran baraheeda bulshada
hodan iyo seegeeda waxa ay muddooyinkii dambe ku noolaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Sahal Gacmo Dheere oo ahaa wariye ka tirsan telefishinka SBC isla markaana fadhigiisu u yahay Puntland ayaa isna ka mid noqday dadkii ku dhintay mashaqadaasi. Deeq Ciise Cabdulle oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada ayaa dhankiisa ku jira dadka ku nafwaayay ismiidaamintii iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo. dadka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa ganacsade lagu magacaabi jiray Arbaco Rukun, waxaana kale oo dadka ku dhintay ka mid ahaa Deeq Ciise Wabi oo ka shaqaynayay hay-adda aan dawli ahayn ee fadhigeedu u yahay magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaa weerarka hoteelka Ascasi ku dhintay Maxamed Ismaaciil Shooriye oo ka mid ahaa murashaxiinta xilka madaxweynenimo ee Jubbaland u taagan doorashada bishii soo socota dhici rabto. waxaa sidoo kale wararka ay ku darayaan intaasi in Mahad Cabdullaahi Nuur oo lagu magacaabi jiray ama ku magac dheeraa Garguurtay oo ka dhashay qoys ganacsade ahaa oo isna ku geeriyooday weerarkaasi. dadka weerarka hoteelka ku nafwaayay waxaa ka mid ahaa nin magaciisa lagu sheegay Inaci Gaalshidaad oo Kismaayo u joogay arrimaha doorashooyinka odayaasha dhaqankana ka mid ahaa. dadka dhintay waxaa ka mid ahaa ajaanib u dhashay dalalka kale ah Canada, Kenya, Britain, America, Tanzania iyo sidoo kale dad haystay dhalashada China. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isla xalay booqday dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii ismiidaaminta ahaa iyo weerarka ee lagu qaaday hoteelka Ascasi ee magaalada Kismaayo. dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa cambaareeyay waxaana ku jira ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladaha Soomaaliya sida waan u taageero oo ay ka mid tahay qaramada midoobay ayaa iyaduna cambaareysay weerarkaasi waxaana ay ku tilmaameen fal wuxuushnimo ah. hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka Thaabit Cabdi Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay in weerarkaasi uu ka xun yahay sidoo kalena ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo haldooro u ahaa bulshada Soomaaliyeed. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa sheegay in weerarkaasi ay soo afjareen saakay iyada oo in muddo ah ama 11 saacadood in ka badan weerarkaasi uu qaatay. mas'uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab. magaalada Kismaayo ayaa ah magaalo amnigeeda si weyn loo ilaaliyo iyadoo ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb qaadanaysa doorashada madaxtinimo ee la filayo in bisha soo socota ay ka qabsanto magaalada Kismaayo. Maxamuud Alxaaji Goobjoog, Muqdisho. waaga kula xog faafay ay la socotaan daawadayaal waxaanu idinka codsanaynaa haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad subscribe saartaan oo aad rukumataan wararkana aad la galeysaan oo share gareysaan asxaabtiina aad la wadaagtaan si xogahii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibaddaba aad ula socotaan. dhinaca kalena isla wararka Kismaayo inta aynan ka bixin dhaawacyadii dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii iyo ismiidaaminta ahaa ee weerarka ka dhacay Kismaayo ayaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho si daryeel caafimaad ay u helaan. waxaana dadka qaarkood la sheegayaa in loo qaaday dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda wadankaasi. ilaa lagu kalsoonaan karo ayaa xog faafay u xaqiijiyay in dadka dhaawacyada ahaa ee mas'uuliyiinta loo qaaday dalka Nairobi halka kuwa kale ee rayidka ahaa ee dhaawacyadooduna aysan sida zaa'idka u darneen loo soo qaaday gudaha magaalada Muqdisho oo la dhigay isbitaalka Erdogan Digfer ee magaalada Muqdisho halkaasi oo daryeel caafimaad lagu siinayo. saraakiisha caafimaadka isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in tirada dadka dhaawacyada xad dhaafka ah aysan isbitaalka qaadi karin sidaas darteedna looga baahan yahay in la geeyo isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dabcan si xaaladooda caafimaad lagula tacaalo. xogaha kale ayaa sheegaya in weerarka dadka lagu qaaday qaarkood ay ahaayeen kuwo dabcan dhaawacyo burbur ah uu soo gaaray kuwaas oo u baahan in kabniin iyo sidoo kale daryeel caafimaad oo midka xagga ay ku haysteen mid ka sareeya la siiyo. magaalada Kismaayo ayaa muddo 7 sano oo maamulka Axmed Madoobe uu ka talinayo waa markii ugu horeysay ee qarax noocan oo kala ah weerar ay ka fuliyaan oo ay sheegtaan mas'uuliyadiisa xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dhinaca kalena daawadayaal xogaha kale aan idin hayno diyaarad military oo waday mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Qatar ayaa ka degtay galinkii dambe ee maanta gegada diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. wararka ayaa sheegaya in mas'uuliyiintaasi ay kulamo la qaadan doonaan wafdi ka socda ama wafdigan kulamo ay la qaadan doonaan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre kaas oo safar shaqo ku jooga Galmudug.
diyaaradan gaarka ee sida wafdiga ka socda wasaaradda difaaca dalka Qatar ayaa gaartay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. wafdigan ayaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb waxaa ku soo dhaweeyay wasiir dowlaha wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa. wafdigan ayaa kulan saxaafadda dabajoog ka tahay haatan Dhuusamareeb kula qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Kheyre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. ujeedka ay Dhuusamareeb u gaareen wafdigan isugu jira mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan wasaaradda difaaca dowladda Qatar ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen tababarka la siinayo ciidanka Ahlus Sunna ee lagu wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in dowladda Qatar ay lacag ku bixin doonto tababarka ciidanka Ahlus Sunna kuwaasi oo dhowaan dowladda lagu wareejiyay si ay uga mid noqdaan ciidamada qaranka Soomaaliya. diyaaradda nooca militariga ayaa saraakiishan ka dejisay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb kaasi oo la sheegay in ay ahayd tii ugu horeysay ee nooceeda ah ee ka degta garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb tan iyo markii halka Galmudug laga dhisay. dowladda Qatar ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibta dhowla ah dowladda federaalka waxaana ay ka taageertaa dhinacyada qalabaynta ciidamada dhaqaalaha ammaanka iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyada oo ujeedada ugu muhiimsanna ay tahay sidii loo caawin lahaa dadka gaar ahaan saraakiisha ciidamada ee ku sugan halkaasi. dhinaca kalena daawadayaal wali xog faafay la socotaan fadlan rukumo oo subscribe saar wararkeena si xogihii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda aad u heshid. Somaliland hadii aynu aadnana markab ka baxay magaalada Berbera oo sidee xoolaha nool ayaa magaalada Jidda xeebta ama dekada ku taala laga soo celiyay kadib markii la sheegay in aysan wadanin ruqsadii loogu talagalay in ay ku galaan xoolahaasi. wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland ayaa sheegtay in ay ka xun tahay tallaabada ay qaaday dowladda boqortooyada Saudi Arabia kaasi oo ku aadan in ay ku xadgudubtay hannaankii iyo habkii ay u soo martay oo ku aadanaa in arintooda la xalliyo oo loo qaato go'aan ah in xoolaha nool ee Somaliland ka baxay la sii daayo. wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland wasiir u hadlay oo lagu magacaabo Xasan Gaafadi ayaa xaqiijiyay in dekada magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga lagu xanibay markab siday xoolo kaasi oo ka dhoofay dekada magaalada Berbera. sababta markabkan loo xanibay ayaa ah in uusan haysanin shahaadada caafimaadka xoolaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. arrintan ayaa laga yaabaa in ay sii abuurto khilaaf kale oo hor leh oo ku aadan in ay sii kala fogaadaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo hadda wada hadalkooda la filayay in uu ka qabsoomo gudaha wadanka Turkiga iyo sidoo kale Nairobi iyada oo kulamo gogol xaar u yihiin la filayo in ay ka qabsoomaan wadanka Kenya. arrintan ayaa sababtay kadib markii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka u gudbisay ashtaka ah in aanan Somaliland si toos ah loola macaamili karin oo wixii ruqsado dowladeed looga baahan yahay in ay villa Soomaaliya jarayso halka Somaliland ay ku adkeysanayso go'aankeeda ah in ay tahay dal madax bannaan oo heshiisyo caalami ah ay gali karto. gudan daawadayaal warkaad kala socoteen xog faafiye waa naga inta daawadayaasha nagu cusub waxaynu ka dalban lahayn in ay nagu soo biiraan si ay subscribe u saartaan oo xogihii dambe iyo kuwa dabcan la xiriira ee update ka ahba ay u helaan. fadlan like garay oo share garay asxaabtaadana la wadaag qof walbana u sheeg inuu subscribe saaro si uu u noqdo qofka ugu horeeya ee la socda macluumaadkana tan ay kulati dambe nabadgelyo.